assalaamu calaykum. ku soo dhowaada qisada ramadaanka. nin boqor ah ayaa wuxuu dil ku xukumay ruux ka mid a racyadiisa oo geedaha qori jiray. ninkani ayaa waxaa soo gaartay in berita la dili doono. habeenkii oo dhan ma uusan hurdin. xilli saq dhaxa ah ayaa xaaskiisa ku tidhi, maxaad la murugaysan tahay? iska seexo, alla waa waaxid, albaabihiisuna waa ay badan yihiin. ninkii ayaa hadalkii xaaskiisii ku qancay, wuuna iska seexday. markii uu waaga bari ayuu wuxuu ku soo toosay albaabkiisa oo la garaacayo. markii uu fiiriyey ayuu wuxuu arkay ciidankii boqorka oo albaabka taagan. aad ayuu u naxay, wuxuuna u maleeyey in loo yimid dilkiisa. albaabkii ayuu ka furay isaga oo gacmihiisu jaraynayaan, wuxuuna u taagay labadiisa gacmood si ay u xiraan boqorkana ugu geeyaan. nimankii ciidanka ayaa la yaabay, waxayna ku yidhaahdeen, waxaa xalay dhintay boqorkii, waxaana kugu nimid inaad sanduuq u samayso si boqorka loogu aaso. ninkii ayaa aad u farxay, wuxuuna xasuustay hadalkii xaaskiisa ay ku lahayd oo ahaa, alla waa waaxid, albaabihiisuna waa ay badan yihiin. qisadeenna halkaa ayay nooga eg tahay. qisadani waxa aynu ka qaadanayna ayaa waxaa ka mid ah, mar weliba oo aad murugooto, alla arrinkaaga u dhiibo, isaga ayaa kugu filan, culays kastana kaa qaadi karo. waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. haddii aad ku cusub tahay janalka maalmaha, fadlan sabskaraab si ay kuu soo gaaraan muuqaalad cusub aan soo dhigi doono. mahadsanid. يا رب فاقبل صومنا وأعده عاما بعد عام. يا رب صل على الذي فاقت محامده الأنام، فاقت محامده الأنام. وأظلنا شهر السلام، ضيف يزور بكل عام. فإذا أهل هلاله في الكون ينحسر الظلام، في الكون ينحسر الظلام.